إيران ayaa ugu hanjabtay ciqaab adag Israel oo ay sheegtay inay mas'uul ka ahayd kulan wacan madaxa ugu sareeya dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa hogaamiyay salaada janaasada lagu tukaday meedka madaxii ururka Hamas ee dhawaan la dilay Ismaaciil Haniya waxa caasimadda dalkaasi ee Tehran gaar ahaan jaamacadda Tehran University maanta isugu soo baxay boqolaal qof oo baroor diiqayay iyagoo sita boorar iyo calanka Falastiin meedka Haniya ayaa loo duulin doonaa magaalo madaxda Qatar ee Doha si halkaasi loogu aaso dhanka kale ergeyga Iran ku matalo qaramada midoobay ambassador Amir Saeed Iravani ayaa golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee UNSC u sheegay in khaarijinta madaxa Hamas ay muujinayso in Israel ay damacsan tahay in dagaalka Gaza uu ku sii fido qeybaha kale ee bariga dhexe galinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa in dalka Iran uu ka dhaco baroor diiq loo sameynayo madaxii siyaasadda ee ururka Hamas Ismaaciil Haniya oo la dilay shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay dadaalo diblomaasiyadeed oo degdeg ah si looga fogaado isku dhac ballaaran oo ka dhaca bariga dhexe kulan degdeg ah oo yeesheen saacado kadib markii Mr. Haniya la dilay madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay xaaladda taagan halis soo korortay safiirka Iran ee qaramada midoobay ayaa isna ku tilmaamay fal argagixiso ah Shiinaha Ruushka iyo Algeria ayaa iyaguna cambaareeyay Japan ayaa sheegtay inay ka cabsi qabto in gobolka uu qarka u saaran yahay inuu dagaal dhan walba ka dhaco Britain waxay ku boorisay xasilooni iyo isxakamayn iyadoo ku celcelisay baaq xabad joojin degdeg ah oo laga sameynayo Gaza Mareykanka ayaa ugu baaqay xubnaha golaha ammaanka ee saameynta kula Iran inay joojiyaan inay soo huriyaan xaaladda qasan ee ka taagan bariga dhexe dhankeeda Iran ayaa ugu hanjabtay ciqaab adag Israel oo ay sheegtay inay mas'uul ka ahayd dilkii hogaamiyaha Hamas ee shalay dhacay Israel si toos ah uguma hadlin duqeynta lagu dilay Ismaaciil Haniya ee Tehran ka dhacay si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dalkiisa uu dharbaaxo culus u geystay cadowgiisa maalmihii la soo dhaafay oo ay ku jirto dilka taliye sare oo ka tirsan ururka Hizbullah kaasoo lagu dilay Lubnaan dowladda federaalka Soomaaliya ee iyaduna xalay waray soo saartay si kulul u cambaaraysay dilkii loo geystay Allah u naxariistay hogaamiyaha garabka siyaasadda Hamas Ismaaciil Haniya waxaana dowladdu ay soo jeedisay dalab culus oo ka dhana Israel oo lagu eedeeyay inay beegsatay hogaamiyahaasi xilli uu ku sugnaa magaalada Tehran caasimadda dalka Iran warqad ku qorneyd luqadda Carabiga oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dilka Ismaaciil Haniya uu ka hor imaanayo shuruucda caalamiga isla markaana uu yahay mid xadgudub ah oo ay geysatay Israel sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay in dilkan uu sare u qaado xiisadda culus ee haatan ka jirta bariga dhexe oo laga cabsi qabo inay dagaal isku sii rogto sidoo kale waxaa la sii raaciyay Soomaaliya waxay ka cabsi qabtaa inay sii korto xiisadda ka taagan bariga dhexe taasoo horseedi karta xadgudubyo hor leh oo ka dhana dadka rayidka waxaa kaloo war-saxaafadeedka lagu sheegay in dilalka siyaasadda ee ay fulinayso Israel ay sababi karaan rabshado iyo inay sii korto xiisadda ka taagan bariga dhexe dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u jeedisay dalab culus oo ku aadan tallaabo degdeg ah oo laga qaado maamulka Israel qoraalkan ayaa ugu dambeyntii tacsiil loogu diray dowladda Falastiin iyo shacabkeeda iyo qoyska Ismaaciil Haniya iyo saaxiibkiisii Allah u wada naxariistee waxaa tan iyo markii la baahiyay warka ku saabsan geerida hogaamiyaha garabka siyaasadda Hamas Ismaaciil Haniya Allah u naxariistee oo lagu dilay Tehran isu soo tarayay aragtida bulshada qeybaheeda kala duwan guud ahaan caalamka culimada Soomaaliyeed ee iyaguna dhankooda ka hadlay iyagoo u arka in lagu gardarooday madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa Haniya u magacaabay ra'iisul wasaare sanadkii 2006 kadib markii Hamas ay ku guuleysatay inta badan kuraasta doorashooyinka qaranka sanadkii 2018 waaxda arrimaha gudaha Mareykanka ayaa Haniya u aqoonsatay argagixiso wuxuu ku noolaa Qatar dhowrkii sano ee ugu dambeeyay Ismaaciil Haniya ayaa laga yaabaa inuu aanan mas'uul ka ahayn dhacdooyinka maalinlaha ee dhulka Gaza taasi oo ah qaybta taliyaha militariga Yaxya Sinwar balse dhanka kale Ismaaciil Allah u naxariistay ayaa hogaamiyaha kooxda ahaa xilliyadii uu dibad wareega ahaa loo arkay xubin muhiim ah oo dhexdhexaadinta
iyo wada hadallada nabadda si firfircoon uga qayb qaata kuwaasoo ay dhexdhexaadinayeen qatar maraykanka iyo masar hogaamiyaha iiraan ayatullah cali khamenei ayaa wacad ku maray ciqaab adag iyo argoosi ka dhan Israel kadib shirqoolkii habeenkii Arbacada lagu dilay madaxii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya xilli uu ku sugnaa guri ku yaala magaalada Tehran ee caasimadda Iiraan. Inkastoo aysan Israel si toos ah u sheegin dilka Ismaaciil Haniya, haddana Iiraan iyo Xamaas ayaa ku eedeeyay inay ka dambayso dowladda Israel. Haniya ayaa u tagay Iiraan ka qaybgalka munaasabadii Talaadada lagu caleemo saaray madaxweynaha cusub ee Iiraan. Iiraan ma aysan sheegin qaabka ay ugu argudan doonto Israel, hase yeeshee wargeyska New York Times oo soo xiganaya 3 sarkaal oo ka tirsan dowladda Iiraan oo ka dalbaday inaan la magacdhabin ayaa sheegay in Ayatollah Cali Khamenei uu ciidamada Iiraan ku amray inay si toos ah u weeraraan Israel. Dhanka kale, waxaa cabsi laga qabaa in dagaalka bariga dhexe uu waji cusub yeesho xilli ay aad u kacsan tahay xiisadda ka taagan gobolka sida dagaalka Gaza, colaadda xadka Lubnaan iyo Israel, iyo weerar suuragal ah in Iiraan ay uga jawaabto dilkii Ismaaciil Haniya. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in xaaladda la qaboojiyo, halka Maraykanka uu sheegay inuu ka walwalsan yahay xiisadda sii horeysa ee gobolka bariga dhexe. Haddaba waa kuwa qaar ka mid ah hogaamiyaasha Xamaas. Yaxya Sinwar waa hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Xamaas ee marinka Gaza. Wuxuu dhashay sanadkii 1962. waa asaasaha waaxda ammaanka ee Xamaas ee loo yaqaano Majd, taasoo maamusha arrimaha ammaanka gudaha. Barta waxaa loo shakiyaa ammaanka gudaha baarto kuwa looga shakiyo inay la shaqeeyaan Israel islamarkaana dabagasho sirdoonka Israel iyo saraakiisha ammaanka. Sinwar ayaa dib ugu laabtay xilkiisii hogaamiye ee Xamaas, waxaana loo magacaabay madaxa xafiiska siyaasadda ee kooxda marinka Gaza sanadkii 2017. Maxamed Deif waa hogaamiyaha wuxuu hogaamiyaa Izzuddin al-Qassam oo ah garabka militari ee dhaqdhaqaaqa Xamaas. waa nin aan inta badan la arag oo Falastiiniyiintu u yaqaanaan ninka aqliga badan, halka Israa'iiliyiintu u yaqaanaan bisadda leh 9 nafood oo ay haatan sheegayaan inay dileen Julaay 13 sanadkan. Dowladda Israel ayaa xabsiga dhigtay sanadkii 1989 kadib markii uu asaasay al-Qassam, iyadoo ujeedadu ahayd in lagu soo qabto saraakiisha Israel. Marwan Ciisa Xamaas ma aysan xaqiijin in Marwan Ciisa ku-xigeenka taliyaha guud ee guutada Izzuddin al-Qassam lagu dilay duqeyn cirka ee ay fulisay Israel bishii Maaj sanadkan 2024 sida ay sheegeen aqalka cad. La taliyaha amniga qaranka Maraykanka Jake Sullivan ayaa sheegay inay dileen ciidamada IDF-ta kadib markii ay soo baxeen warar ay baahiyeen warbaahinta Israel oo sheegaya inuu ku dhintay weerar ka dhacay dhismo god dhulka hoostiisa oo hoos mara xerada qaxootiga ee Nusayrat.